بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم داودياشا qiimaha iyo qadarinta mudan lahow meel walba joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkii codka jaaliyadda Canada oo aad xiliyadan oo kale uga barateen inuu idinkaga yimaado stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaana barnaamijka halkan idinkaga soo gudbinaya sida caadada ahaydba anigoo ah Muxiidiin Jaamac Muuse. sida aad ka warqabtaan daawadayaal waxaa nagu soo fool leh maalmihii xorriyadda ee dalka Soomaaliya 26 Juun iyo bisha July koodeeda oo sanad walba marka la gaaro xilligaasi magaalada Toronto laga abaabulo dabaaldeg weyn oo loogu dabaaldegayo maalmahaasi qiimaha kula dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Toronto ama guud ahaan dalkan Canada bisha July koodeeda inay tahay iyaduna maalinta xorriyadda ee dalkan aynu ku noolnahay ee Canada. sidaasi daraadeedii ayaa waxaa halkan lagu qabtaa sanad walba tartan caan baxay oo lagu magacaabo toddobaadka Soomaalida oo lagu soo bandhigo kubadda cagta waxaana tartankani ka soo qayb gala kooxo aad u fara badan oo ka kala yimaada gobolada uu ka kooban yahay dalkan Canada iyo dalka Mareykanka. ciyaarahani waxaa soo abaabula guddiga ciyaaraha ee Sosco ee ka dhisan magaalada Toronto. haddaba waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay magaalada Toronto gaar ahaan maqaayadda weyn ee Easter kulan afura oo ay isugu yimaadeen dhammaan maamulada kooxaha macallimiinta iyo guddiyada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Toronto iyadoo halkaasi lagu soo gudbiyay jadwalkii isku aadka kooxaha ka qayb galaya tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee lagu qaban doono magaalada Toronto. ciyaarahaasina waxaa soo qaban qaabiya guddiga Sosco ee ka dhisan magaaladan. waxaa la filayaa ciyaarahani inay si rasmi ah u bilowdaan 28 bisha Juun iyagoo socon doona ilaa iyo toddobaadka ugu horeeya ee bisha July. haddaba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaasi quruxda badan ee afurka ah laguna talagalay in lagu soo bandhigo jadwalka ama qorituurka tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga Sosco ee ka dhisan magaalada Toronto. daawasho wacan. حوراتو عشينو داشي أنوالو هاشي أمان ديغي أقلو عندادي كل مالسي أنوالو هاشي أمان ديغي أقلو عندادي كل مالسي أنوالو هاشي بسم الله. waxaan bilaabaynaa barnaamijkeena caawa oo aan ugu talagalnay qorituurka ciyaaraha toddobaadka Somali Week oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Soska. insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rabaa jeclaa inaan ku bilowno Sheekh Abukar oo ku degdegsan waqtigii salaada taraawiixda kadibna waxaan u gudbino doonaa insha Allah martida sharafta leh ayaguna markaa jooga fadhiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بمهد بدن إسكال الحمد لله أنه هل كان ما أنت كوضع أفري ولا لها سود دياري نو سود دياري أفر كان ما شاء الله آدو قيمة بدن ومهد سنيهين أرد عين إخواني إلهي سبحانه وتعالى أو بركيو حقوقه مالكوده يا أولادوده dadkii soo diyaariyay afurkan soo diyaariyay
annagana ilaahay naga aqbalo soonka ilaahay naga aqbalo ikhwaani waxaad ogaataan qofka intuusan afurin ducadiisa oo ilaahay u baryo waa la aqbalaa marka waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysatid intaadan afurin ilaahay subxaanahu wa tacaala bari maxaa yeelay waxay ka mid tahay awqaadda qofka muslimka ducadiisa la ajiibo yani ka waran 30 bariba intaadan afurin ilaahay gacmaha u taago wax allaale wixii adduuniya aakhiraba ilaahay bari subxaanahu wa tacaala marka ilaahay naga aqbalo cibaadada soonka salaada taraawiixda qiyaamuleylka allah naga aqbalo yani intaas kadib ikhwaani kollayba barnaamijkan walaalaha isboortiga soo qaban qaabiyey waa mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran waxaa loo baahan yahay runtii maanta bulshadeenni ama mujtamaceenni dhibaatooyin badan baa na haysta dhinacyo badan naga haysta waxaan u baahannahay inaan iska kaashanno ragga isboortiga masaajidada communitiyada haweenka intaan kulligeen isu nimaadno runtii mushkilada maanta na haysata inaan hal meel uga soo wada jansanno u midowno ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay wactasimuu bixablillaah xarigga ilaahay qabsada yani intaas waa nagu fillayd haddana maxaa lagu daray jamiican dhammaantiin baa la yidhi haddana maxaa lagu sii daray walaa tafaraquu ha kala tegina yani marka insha allahu tacaala aan isu nimaadno yani maaragtay garabka aan isqabsanno dhibaatada mashaakilkana haysata maaragtay aan wada xallinno gaar ahaan raggeena isboortiga shaqo badan baan runtii qaban kartaan dhallinyaradu maanta waxa lagu soo jiidi karo waxaa ka mid ah isboortiga inaad isboortiga ku soo jiidaan kadibna masaajidka noo keentaan annaguna masaajidka meeshaas aan uga diyaarino muxaadarooyinkii iyo duruustii iyo marka wada shaqayntaas ayaa runtii loo baahan yahay inaan maaragtay mujtamaceenni maanta wax uga qabanno dhallinyaradeenna wax ugu qabanno marka waa fursad runtii yani maaragtay jazaakumullahu khayran annaguna masjid ahaan dhinaceenna diyaar baan idin nahay yani maaragtay yani waxaad ogaataan almu'minu alqawiyu khayran wa ahabbu ila allahi min almu'min aldaciif wa fi kulli khayr yani mu'minka qawiga ilaahay agtiisa waa laga jecel yahay yani qawiga maaragtay jirkiisa cilmigiisa awoodiisa dhinac walba muslimku waxa la rabaa inuu xoog ka leeyahay yani maaragtay muslimka xooga badan baa ilaahay agtiisa looga jecel badan yahay muuminka qawiga baa ka khayr badan ilaahay agtiisa laga jecel yahay muuminka daciifka yani taas macnaheedu waxa waaye kulligan waa u baahannahay riyaadadii baan u baahannahay isboortigii baan u baahannahay jirka xaqiisa in la siiyaan u baahannahay ruuxa xaqiisa in la siiyaan u baahannahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jira saxaabi la dhihi jiray cabdullaahi ibn camar ibn caas wuxuu yidhi anigu hameenkii oo dhan salaad baan u taagnaanayaa qur'aan akhris baan samaynayaa sanadkoo dhan waa soomayaa haween ma guursanaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam maya buu yidhi saas maaha inna libadanika calayka xaq buu yidhi jirkaaga xaq buu kugu leeyahay martidaadu xaq bay kugu leeyihiin haweenku xaq bay kugu leeyihiin indhahaaga xaq bay kugu leeyihiin marka jirkaaga xaq buu kugu leeyahay yani maaragta imaam ibnu qayyimna wuu ka hadlay runtii riyaadada aad buu uga hadlay yani wuxuu yidhi xarakada yani dhaqdhaqaaqa iyo socodka iyo kulli faa'iido badan buu u leeyahay jirka buu yidhi maaragta islaamkuna riyaado badan iyo maaragta sports badan buu aad u tixgeliyay yani maaragta marka ikhwaani raggiina isboortiga maaragtay ilaahay khayr idin siiyo shaqadiina sii labanlaaba dhallinyarada isboortiga ku soo xira intay waxyaalo kale aadi lahaayeen oo waqtigooda meelo kale ku dhumin lahaayeen oo waxyaalo aan habboonayn ku dhumin lahaayeen dhinacaan isboortiga u soo jiida yani markaa dhinacaan isboortiga u soo jiidaanna maaragtay masaajidka keena yani maaragta idinkuna waxaa laydinkaga baahan yahay qofka inama alacmaalu biniyaad haddaad isboortigan u niyootid in jirkaaga xoog uu ku yeesho cibaadadana uu kugu kaalmeeyo ajar baad ka helaysaa yani maaragta midda kale waxaa la rabaa isboortigu inuusan kaa mashquulin assalaa ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta yani nabiga calayhi salaatu wasalaam marka la addimo yani waxa waaye wax allaal waxa faraha ku hayo dhan wuu dan jir yani assalaa yani maaragta waxaa la rabaa isboortigu meel allaale meeshuu raba ha maro meel allaale meeshuu raba ha joogo yani kaad daawanaysaa salaada marka la gaaro halkaas ku xir yani maaragta cayaaraha xataa marka salaada la gaaro salaada ha la tukado isboortiga ha la ciyaaro ama hadday salaada isboortigu kaa mashquuliso waxay soo galaysaa markaas lahwun walacibun bay soo galaysaa yani marka qofka caaqilka waa qofka isboortigiisana ciyaara diintiisana haysta salaadiisana yani maaragta ilaaliya yani marka taas waxaan idinku dhiirigelinayaa inaan aad u wada shaqayno waa laydin baahayaan runtii shaqooyin aanaan annaga masjid ahaan qaban karin baa idinku qaban kartaan oo xaggii dhallinyarada runtii markaad isboort u habaysaan
oo meelo yani mar isugu yartaan waxa laga yaabaa in aad u soo jidaan yani marka ilaahayna shaqadiina haydin fududeeyo yani maaragtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala jaaliyaddeena qalbigeeda allah isu soo jeeday yani maaragtay الله لنا مديو وحي دبنا إلهي سبحانه وتعالى النجاح جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دمان أغيارتا دلنيردا odayaasha magaalada Toronto oo jaaliyada Soomaaliyeed waxaan halkaan rabaa laba hadal inaan ka jeediyo marka ugu horeyso waxa Ilaahay mahadiisa walaalaha noo sameeyay inaan ku mahadcelino Afurkan oo qiimaha leh sharafta leh oo isu keenay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan labo waxaan u hambalyeeyaa dadkii soo abaabulay barnaamijkan Soska oo group oo Somali community ka tirsan oo maartay isu keeno dhalinyarada barnaamijkan Somali Week markasta sanad kasta qabtaan oo effort weyn geliyeen oo in muddo soo socday waa u hambalyeeyaa waxa markasta aan u taaganahay wadajirka Soomaaliyeed iyo in aan dhalinyaradeena empower gareeno oo young people oo ka imaanay dibaddana ka imaanay gudahana joogo inay isugu yimaadaan tournament oo sanadkii marka waxaan jeclaan lahaa because of gun violence ka buuxo Somali community markastaba oo dhalinyaro badan ay sanad kastaba ay dhintaan in aan ugu magac darno sanad kastaba markii la sameeyo barnaamijkan barnaamij sportiska iyo nabadda peace sanadka hore waxaan ugu magac darnay Abdulqaadir Yaxye ayaan ugu magac darnay oo peace activist oo Soomaaliya lagu dilay sanad kastaba waxa la recognize gareynaa aan xasuusanaa dhalinyarada sidaas oo kala marka waxaan aad iyo aad mar labaad ugu hambalyeeyaa barnaamijkan oo la soo abaabulay laga soo shaqeeyay odayaasha ka soo shaqeeyay raggii oo madaalayaasha oo effort kaan geliyay rag iyo dumarba dumarkana waad ogtiin waa dadka hayo caruurteena oo dhaleen oo soo barbaariyeen dhalinyarada ciyaarayo soccerka marka waxaan just as an update idinkugu darayaa inay jirto dhalinyaro fara badan oo magaalada Toronto ku soo ziyaaday oo ka yimid dhulkaasi Afrika ka yimid oo newcomer oo refugees dhalinyaradaasna waxaa loo baahan yahay in lagu soo daro barnaamijkan si ay maartay u ogaadaan lagu soo dhaweeyo Soska waxaan ka codsan lahaa inay soo dhaweyso dhalinyaradaas waa dhalinyaro fara badan oo magaalada Toronto joogo magaceena leeyihiin la yiraahdo Gala Canada ma fahmaysaa marka Soska maadaama ay u taagan yihiin youth-ka ay u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan dhalinyaradaas ayaa loo baahan yahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa gaar ahaan barnaamijka TV-ga Somali TV oo asna halkaan joogo promote gareynaya eventkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku mahadsantihiin barnaamijkan oo sida quruxda badan iyo Afurkan oo aan isugu nimid la soo daadiyay thank you very much UK هذا سبورتيغ وحواية أنا نفتكر هذا سبورتيغ وعيارة مركان دليرة هاي سبورتيغ وعيار جري مركان دليرة هاي سبورتيغ وحنك عيار جري لقطة قعنت قلبك هذا وحنك عيارة عندها هنك عيارة وافير سدا هذا وافير سدا تيمك مركان عيارة يا قلبك يمدوس كلا جرا كاسان لجرا marka sportiga wax badan laga hadlay mar raba inaan hadda ka sii hadlo laakiin sportiga wuxuu nabaraa darsi weyn wuxuu nabaraa midnimadu waxay tuunabaraa wuxuu nabaraa marka dadku wax wada qabsadaan in guul la gaari karo marka dhalinyarada team kasta oo isla jiro mid walba hal waxay leeyihiin ay leeyihiin amkaas waa inay ka raayaan teamka kale haddii xataa walaalkiisa si kala dhashkin kale uu ku jiro wuxuu ka jecel yahay inuu ka raayo jecel yahay marka waxayna baraysaa walaalnimada iyo wax wada qabsiga iyo midnimadana baraysaa marka darsigaasna aan ka qaadano waxaan u hambalyeeynaa una mahad celinayaa dadkii soo abaabulay odayaasha iyo dhalinyarada firfircoon ee barnaamijyada sportiga abaabulo ayaan aad ugu hambalyeeynaa waana u mahad celinaa
waxaa waaye hadda dhallinyarada waxa keliya oo looga celi karo inay dhibaato galaan ama yacni violence ay galaan ama la xiro ama biliiska ay dhibaato la galaan waa isboortiga marka isboortiga hal la abaabulo waxaa waaye dadka abaabulana gacanaha lagu siiyo aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan idinku hambalyeeynaa bisha ramadaanka mubaaraga ramadaan mubaaragan idin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkeeni iyo salaadeeni iyo cibaadadeeni isla markaasna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nala kulmiyo leelatul qadarka mar haddii isboorti laga hadlaayana waxa waaye tartan isku imaad iyo isdhexgal haddaba isku imaatinkan aan caawa isugu nimid iyo furitaanka cayaaraha Somali Week ay soo diyaarinayaan ururkan sooska waxaan u rajaynayaa guul waxaan ugu hambalyeeynaa hawsha ay qabteen iyo waxaan u sheegayaa inaan garab taaganahay hiil iyo hoobaba sooska waxaan u rajaynayaa guul ciyaartooyda ka soo qayb galaysana tartanka waxaan leeyahay guul idin rajaynaa waxa idin ka sugaynaana عيار وناكسا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدينكو آدي آد أمهاتسن وعن ديلا هدي كل يقول قف الله إن لدقيستوا في عنته قفل بين مركي أو هالله لدقيستو كل ده إلهي قفك خدمت قريو قري وعن لا سبورتكو maxaa ugu muhiimsan wax la qabto anu waxaan leeyahay waajibaadka ka bacdi wixii ilaahay nagu waajib yeelay ka bacdi waxaan is leeyahay wasaaradda iyo madaxweynaha iyo ummadda dhan waxa ka muhiimsan isboortiga waayo isboortigu qabiil ma leh dadka isboortiga haddii loo ku dhiibo maamulka haddii loo ku dhiibo qabiil ma leh ayagu haddayna hoggaamiyaan marka waxaan leeyahay isboortigu waa caqliga saliimka iyo xigmadda ummaddu inay isboorti lahaato isboorti waa maxay isboortigu kaliya ma aha in qoobka laga ciyaaro maskaxda laga ciyaaraa quraanka barashadiisa waxaa jirta hal xiraale gabayada waxaa ku jira maaragtay arrimo quman wax walba oo la sheegay isboortigu waa ku jira halkan Canada raggii isboortiga maamulay oo ay ugu horeeyeen sokorka ka bacdina lagu soo xijiyay oo hadda meel wanaagsan ay marayaan basketballka aad iyo aad u mahadsan yihiin qabanqaabiyaasha iyo ragga isku duwa iyo ragga noo sameeyay gegida iyo meelaha lagu ciyaaro aad ay u mahadsan yihiin odayaasha anagu odayaasha nahayna waa taageerina communitygu waa taageeraya cid walba marka waxaan is leeyahay isboortigu hana hogaamiyo meel fiican aan maraynaa ilaahayna dhalinyarada isboortiga caqligooda iyo dadnimadooda ha kulmiyo intay meel kale aadi lahayn salaamullaahi wa salaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mahad gaar iskala dadkii isku soo dabaraday maxaa la yiraahdaa soosko oo caawa afurka halkan noogu sameeyay iyo qorituurka ay sameyn doonaan insha Allah waxaan u rajaynayaa inay maxal dhaha samarkan uu si fiican ku dhamaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaaha mahadle oo meeshaas ku keenay anagu caafimaad qabno oo waliba bisha ugu sharaf badan ilaahay doortay ramadaanka dadkii soo qaban waa mahadsan yihiin munaasabadan loogu talagalay in isboortiga lagu xuso aad ugu faraxsan inaan soo qayb galay ilaahay ka dhigay lagu guuleysto qoratuurkane haddii kole waxay ogaatiin guusha laba qof ma ka farxiso haddii qoratuurka kole ay ku raayso oo hadda la dhigi doono aan wada sacbinno waa kole waa nasiib waqtiga nasiib cidda ku guulaysato waa nasiib insha Allah taala nabad ramadaankiisa ilaahay nabad uu gaarsiiyo anigu waxaan ahay isboorti duqoobay fanaanad duqowday hooyo duqowday marka caawana waa habeenkii ducada waa habeenkii ilaahay laga bari jiray in ilaahay muraadka sahray
mar horaan waxaan idhi anigu dawaan wadaa dawo caafimaad dawadii dadkaan wadaa abwaan daacadaanahoo haddana daallan baanahay isboortigaan dumaya fanaaniintaan ku digayaa cuduraan dawo lahaynoo dumarkii raggii galay ayaan uga degayo qabiilkaa dilaaga ayaan daaya leeyahay qabiilku ha dhinto وشكر الله والصلاة والسلام وإذن السلام دمانتين أخيارتا هوينكا دلنيرada isboortiga iyo guddiga sooska oo qaban qaabiye afurkan galabta lagu afuriyo meeshan oo inaan kala soo qayb galno ciyaarihii qorituurka ahaa ee sooska ay qaban qaabin jirtay sanad walba sida la socotaan hadda sooska waa urur soo jiray ilaa dhowr 20 sano ka soo shaqeynayay isboortiga haddana u taagan inuu weli sii wado isboortiga nooc walba ha ahaado waxaan hambalyo u dirayaa maamulka cusub isboortiga sooska iyo kuwii hore joogo loo isku dhafay intaba oo hadda meeshaan wada joogo horumarka weyn iyo intaanu afur ah intay sameeyaan organization saan u weyn ummadda Soomaaliyeed oo Toronto nooc walba ay leedahay isugu keenay ciyaartoydii keenay macallimiintooda keenay ilaa ay Hamilton ilaa ay Kitchener ciyaartooy ka timid meesha ay wada fadhiyaan waxaan leeyahay hambalyo ururka sooska shaqada weyn ay qabteen anagana hadaan nahay ururka sooska aan kamid nahay waxaan leenahay maaragtay gacmo furan ilaahay waxaan ka rajeynayaa ciyaarahan soo socda oo mar dhow noo furmi doonaan inaan maaragtay ay noogu dhamaadaan nabad iyo bashbash iyo barwaaqo waxaan rabaa oo kale inaan idin sheego ciyaaraha hadda la furayo waa kuwii kubadda cagta insha Allah waxaa dhici doona in haddana aan furi doono ciyaarihii kubadda kolayga oo ayakana maalintooda la qaban doono marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ururka sooska horumar idin rajeynayaa shaqada wadi ka sii wada meeshaas anaka waa idin garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah ugaas caraale carshaan waa saaxiibkay ragga xigmadda magaalada kadibna waxaan siin doonaa insha Allah musharaxiinta tartiib ما شاء الله يوكي وما سنته horta waxaan soo dhaweynayaa mahad ilaaha iskale taladu waxa la yiri ragga dadka kuma wada jirto in kooban ay ku jirtaa mahad ilaaha iskale waxaan horta u mahad celinayaa odayaalka maartay ragga qabanqaabayaasha oo ugu horeeyo geedi coachka ya meesha Sheikh Maxamuud anagu geedda waxaan fiirsan jirnay ilaa Deebow Muuse ka jooga macallin Muuse Azura Neero wala markuwaatira macallin Muuse marka waxa leeyahay suldaanka iyo mashaayiqdii iga horeysay anigu waxaan leeyahay dadka isboortiga ku nool aniga iyo dalaysa dadka ugu dhalin badan laakiin waxaan ugu xogaa Cabdirasaaq iyo Ismaaciil Awliyo oo isku raranahay rag badan meesha daawanaya nimanka qabanqaabada oo kamid yahay Sheikh Maxamuud aadan soo dhaweynina shaqadu qabtay waxa jooga rag badan oo loo qaateena kooska cawada waxa niman joogin ma jira waaye waxa jooga ugaas tays ma oo taysak ugaas tays ma jooga waxa jooga Cabdirasaaq Ciise ugaas waxa jooga Suldaan Tennis waxa jooga mashaayiq badan marka waxaan aad ugu soo dhaweynayaa maartay raggan isboortiga oo sooska talada ragga kuma wada jirto isboortigu waa waxa ka mamnuuc ah wax qabiil la yiraa sida gabarta Sacdiyo sheegtay waa runteed hagoog xumayeelkiis laakiin Soomaali waa mid waa shabakad oo way isku wada xiran tahay isboortigu waa waxa ka mamnuucan wax qabiil la yiraa Soomaaliyada martayda wareerta maahane waa hal family ina abtiya ina adeeriya ina ayeeyo waaye waan is wada naqaana walaalaanahay tawfiiqda Allah soo dajiyo dawladana aragtidan isboortiga aragtidiisa oo kale hatuso dawladana Ilaahay hatuso martay tan isboortiga oo kale qulubteera wax jira dhalinyaro la yiraahdo kala gala Canada oo kuma dhalan gala Canada waa laga dhaafayaa nimanka waa dhalinyarada cusub oo coach u naqalaya
waa nimanka dhaqanka yaqaanoo yimid oo dhib soo arkay ilaa South Africa maartay soo dagaalamayay waa niman akhlaaq wanaagsan waa niman masaajidada ku xiran waa niman aad u maartay u edeb badan waa niman Soomaalinimadu dhab ka tahay waxaan rabnaa inay nimanka ciyaalka inta ku dhasho say wallaahi inay u noqdaan iyaguna macallimaan u noqdaan oo walaalahooda isbartaan marka waxaan aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada oo maartay hadda soo gashay waa inay xilka nagala wareegaan odayaalkeennii hore halkaa waxay ka fiirinayeen in la yidhaha Ismaaciil Ooliyo waxaa la rabaa inaad la shaqayso guddoomiyaha inaad la shaqayso Geedi iyo Sheekh Maxamuud iyo wixii la mid ah ragga kale hadda naga maqana ilaahay hatuso isboortiga qiimahu leeyahay ninkaas macallin Muuse waxaan dhihi jirnay meesha ka dheelayo waxa la yiraahdaa duwa ataganti iyo duwa aale iyo duwa talyaaniga na dhihi jiray duwa meeso iyo duwa ataganti iyo duwa aale iyo duwa meeso waxaasana la dhihi jiray دكتور كوين عبد الله واجوجا نيك مشرح وين واجوجا هم حول فيصل جاد وين فكتي رالي أرجعنا خلاصين سود وانا خيارته إنا منجرو أدي واقف سوكرتي نفتي جاجا سبورتي قد كسوكرتي وعن كتجي ما شاء الله نيك الله يراده محوا جوف 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 يا كتجي ومحسنتين وانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد اسبورتيغا غديغا qabanqaabada barnaamijkan quruxda badan isku soo dabariday odayaasha culimada gabdhaheena fanaaniinteena hooyinkeena dhalinyaradeena cusub inta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad halkaan ugu ogolaatay inaan idinkala soo qayb galo aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Cali magaaladan Toronto xaafadda Ethiopia North waxaan ku noolaa ilaa iyo sanadkii 1990 xaafadda Dixon aan ku koray kadibna koraan u wareegay Albion iyo meelahaas aan u wareegay waxaan ahay aabbo 4 caruur leh marka guddoonka waxbarashada magaalada Toronto ayaan muddo badan ka soo shaqeynayay position-kan markuu firaaqada noqday ayaan waxaan la tashtay culimada masaajidada waxaan la tashtay macallimiinta Soomaaliyeed waxaan la tashtay waalidiin Soomaaliyeed waxaan la tashtay macallimiinta bahda isboortiga qayb kamida ama dad kamida iyo dadka ugu firfircoon community-ga jawaabta ii soo baxday markasta waxay ahayd Cali qofkaaga habboon ma jirto waa ku garab taaganahay go ahead aniga oo marka sida hamigaas iyo sharaftaas idinkaga mahadcelinahay waxaan leeyahay qof kasta oo isbida inuu awood leeyahay wuxuu ku tiirsan yahay waxa waaye community-gaaga waxa waaye dadkaaga waxa waaye dadka isku xaafadda tihiin waxa waaye dadkaaga Soomaalida marka waxaan leeyahay si kasta oo aan aqoon u leeyahay si kasta oo aan karti u leeyahay haddii community-gayga soo garab taagneen meel ma gaarayno farkaliina forma dhaqdo marka haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala jagadan igu guuleysiyo waxay noqonaysaa another history-gi Somali community-ga ay dhigan sanad ka hor waxa dhacay another history oo ay noqoto boorka waxbarashada Canada ama Toronto oo ah kan ugu ballaaran inaan ku yeelano qof ku hadlaya afkaaga ku eg kula magac ah oo dhalinyaradaadana ay si fiican ugu firaaqoobayaan marka waxaan si walaaltinimo ku jirto Soomaalinimo ku jirto and I think waxaan u maleynaa meel Soomaalinimo ka fiican oo maanta lagu abtirsado marka inta joogno inaysan jirin marka si aan hore u gaarno oo hore ugu socono walaalayaal hooyooyin abbayaal abtiyaal dhalinyaro adeerayaal awyaal waxaan idin ka codsanayaa inay igu garab istaagtaan inaan ku guuleysto jagada trusteega July 25 Ethiopia North thank you very much Assalamu alaikum. Good evening, everybody. So, first of all, I'm going to respect my seniors and all the Sosa Soccer Club, Levan and his team. I want to congratulate them who organized this evening, like a fast breaking today. And congratulations for Ramadan to everybody. So
what we are here today to celebrate this fasting evening today, and then the every year the SOSA Soccer Club is always we work together, and then they always invite me at their soccer tournament. So I just congratulate them for their next coming tournament, and we should all support them for the next coming tournament. And then I again congratulate them for this year they are having a very nice successful tournament too. So we should all support them, because the soccer is a very nice game. Like the way I saw the Somalian community plays, they have very, very good soccer players. So I'm again going to support them this year for their tournament. So I wish everybody a happy Ramadan, and then you have another 15-16 days more left for the fasting, and then we might come back and meet you at the soccer tournament. Thank you. waxaan kaloo halkaan hadda uga mahadnaqayaa oo run ahaantii la rabaa inaan u taagnaano cali oo run ahaantii ah nin muwaadina oo dhalinyaradeenna u taagan iyo educationka meel walba u taagan marka annaga noorad ayaan nahay noorad Etobico ilbaabadan garaacayna lacagta ku subood garaynayna de xoog inaan ku soo dhacsano kursigaas ayaan ku talagalaynaa insha Allah taala taasna cali halkaas uga baxayna midda kale aan ku xiri doono waxay tahay caawa waa caawa ramadaana ciyaartaana de tiimamkeennii annagu tiimkii galmudug ayaan wadanaa run ahaantii iyo qaatumo state labadaas tiim ayaan anigu mas'uul ka ahay oo ninka sponsor labadaas tiim ninkii sponsor ayaan ahay qaatumo state iyo de waxaan rajaynaynaa sanadkan koobku liibaan inuusan annagana dhaafi doonin macluubooyinkeenna waa soo qaadanay dadkana yaysan u qaadanin competitionka iyo tartanku waa waxyaabaha keena caafimaadka marka de dagaalkaas ayaan ku jirnaa oo xagga ciyaaraha yaana la tusad anuguna go'ay ugu horeeyay ayaan wataa wassalaamu calaykum macallin muuse intaan u yeerin run ahaantii horta waxaan jeclahay miiskaas inaan xusaa ayaan jeclahay sida macallin muuse cali gurey dr cabdullaahi xasan mahdi iyo faysal dhammaan rag sportista oo muddo dheer sportiga ka soo shaqeynaya miiska inay fadhiyaan oo hadalkaana waxba ka siin laakiin aan jeclahay inaan mar dhow wax ka siiyo haddaba intaan u gudbin waxaan jeclahay inaan u yeero axmed hiirad shire axmed hiirad waa taqaaniin intiina badan axmed hiirad waa run ahaantii sportiga magaaladan ka dhisan waa ninkii soo suurtageliyey tiiman badan ee ku bixiyey kharash badan dhiirigeliyeyna dhallinyaro badan oo sporti ah wuxuuna ka soo horjeedaa family sports ah hiirad shire adeerkeen alla raxma axmed hiirad ku soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad waxaan ugu faraxsanahay caawa oo rabadaan ah in aan kulligeen iskugu imaanno holkan Easter oo aan xusno Easter ay tahay meel oo aad u qurux badan oo dadka dhan ay iskugu imaan waxaan aniga aan ka tirsanahay guddiga Sosco oo Sosco horta taariikhda Sosco aan sheego Sosco wax hadda aasaasmay ma Sosco waxa la aasaasay waqti hore oo dhalinyarada sportska ah dhalinyaro badan baa ka soo baxay booni soo dheelay guddiyo badan baa soo galeen waa la isbedelay maamulo waaweyn ayaa ka soo shaqeeyay ragga xagga fadhiyo aad ugu mid yihiin sportiga Toronto dadka ka soo shaqeeyay miiskaas ayay ku wada leeyihiin cali gurey macallin muuse xasan cabdullaahi xasan mahdi dhinacan waxaa fadhiyo maxaa la lahaa dadkii sportiga ka soo shaqeeyey saciid cabsaax xogaayihii weynaa sportiga kubadda kolayga maxaa la lahaa cabsaax xuseen geedi suldaanka oo fadhiyo sportskan ka hadlaya yani sportska waxaa waaye qolaba boqol ay bedeshaa annaga markaan hawsha wadnay oo wax soo wadnay waxaan soo wadnay 20 years dhalinyaraan soo saarnay kuwaan soo saarnay ilmay dhaleen maxaa la lahaa dad waaweyn waaye hadda waxaa hawshii sii qabtay oo meeshiisa ka sii waday liibaan iyo shii maxamuud oo iyagana meesha ka sii qaaday in la isku xishmeeyo sportsiga aad u wanaagsan yahay annaga waxa way dadka naga waaweyn waa xishmeynaa waxa naga maqan dad badan oo aan caawa meeshaan imaanin dhalinyarada aan ku bedeli doonana xaggay fadhiyaan sportska kala oo mustaqbalka lagu bedeli doono dhinacaas waxaa fadhiyay gabdhihii sportska Soomaaliya soo dheelay oo Toronto wax ka soo qabteen ciyaaraha Soomaaliya wax ka soo qabteen kulligood xaggay fadhiyaan maxaa la lahaa kulligood waxaan aad ugu faraxsanahay Sosco
soosko wixii hadda ka bilowdo waxay sii noqonaysaa waa sii weynaanaysaa oo yani tartanada dibadda iyo kulli wixii ka imaan jiray sidii aan ku soo celinaynaa waana madaasayaa UK oo ahaa ninka kaliya oo sportska aad u wado waxaan jeclahay cabdulaahi duqow inaan u yeero waa dhallinyarada cusub oo gala Canada oo hadalka wax ka siin doono kadibna waxaan u gudbi doonaa macallin Muuse iyo insha Allah iyo Cali Gure iyo Cabdulaahi oo qorituurka nala nidaamin doona hadalkana wax ka heli doona kusoo dhawaad Cabdulaahi waa mahadsantahay UK mar sharafka meesha ugu timid dhammaan horta mahadda guud ahaan waxa iska leh Allahiina kulmiyay inaan caawo meeshan ku wada furno waa idin wada mahad celinaa dhamaantiin anoo ku hadlaaya magaca gala Canada ama newcomers raalli hal iga hada mikrofoonka cabsada mikrofoonka isku fiirnaa baleena salaan qiimo badan iyo soo dhaweyn ta aanoo muujiseen aan horta aad ugu faraxsanahay salaanna waa idin wadnaa salaantaas kadib sportska waxaa ka mamnuuca wax la yiraahdo qabiil waxna daashaday 24 sano ama 25 sano dalkeena ama 26 sano aan dhaho daashaday dalkeena meesha kaliya oo noo fiiqo waa sportskana waa isdhexgalka bulshada taas marka aan ku dadaalno sportskeenaas aan dhaxda haysano waa meesha kaliya oo ka caafimaad qabna marka dhamaanteen aan wada taageerna gacnaha aan isqabsano wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waxaan jeclahay intaan u gudbin miiska odayaasha sportiga oo iyaguna aan ka siin doono qorituurka iyo hawsha iyo hadalka intaba inaan u yeero Sheekh Maxamuud oo ku hadlaya magaca ururka Sooska oo ah gudoomiyihii hore haddana xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub Cabdirasaaq Xuseen Geedi fadal Sheekh Maxamuud ciyaartoyda odayaasha gabdhaha ciyaartoyda fanaaniinta Nagruma iyo Dalays dhammaantiin dadka ka soo qayb galay barnaamijkan sportiga oo qorituurka aan u talagalnay aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa inaan idin dhaho Soomaali haddaan nahay maadaama sportiga waa jecelnahay yar iyo weyn qof kasta sportiga waa jecel yahay marka waxaan rabaa inaan idin dardaarmo muxuu ahaa innamal a'maal binniyaat marka niyadda inaan quruxsanno oo muxuu ahaa waxaan aan ula jeedno Ilaahay dartiis marka Ilaahay dartiis ula jeedo waxaa laga yaabaa inaa faa'iido ka heshid laakiin haddii qarad kale iyo adduunyo ay kugu jirto inaad ka heshid ama aad ka heshid maarta magac inaad ku yeelatid meel ma gaarayso barnaamijka waday iyo dantaa waday meel ma gaarayso waana ku faraxsanahay sida aad soo qayb gasheen waxaan kala rabaa inaan idin sheego sanadkan markay ciyaaraha noo dhamaadaan waxaan rabnaa waxaan la xiriirnay Soomaaliya gudaha FIFA Cabdiqani iyo rag kale waxay nagu casuumeen magaalada Muqdisho marka ciyaartoyda haddii Ilaahay yiraahdo ugu firfircoon sanadkan ilaa 16 ciyaartoy aan u baahanahay oo ka qayb galo ciyaaraha Muqdisho North America waxaan ka sameynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo hal team Yurubna ayaga waxay sameysteen hal team Carabaha oo dhan waxay sameysteen hal team ciyaartoyda zeeraada magaalada Muqdisho 10 team hal team ay isku soo saareen marka afartaas team ayaa insha Allah lagu tijaabin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo August marka in loo diyaar garoobo community arrintaas ay u diyaar garoobaan dhalinyarada qaarkood waxaa laga yaabaa dhalinyarada qaarkood waxaa laga yaabaa inay arday yihiin aysan awoodin inay tigid iska bixiyaan marka anagay noo taallaa ama Sooska ha noqoto ama qolooyin kale wax qabta ha noqdaan ama waalidiinta ha noqdaan in laga caawiyo dhalinyarada tigidhada ragga xagga jooga muxuu ahaa kubadda cagta waa sheekaysanay waxay dhaheen Sheekh Maxamuud waxa awoodnaa hadda waxaan ka bixinaynaa hoteelka iyo jiifka marka noo timaadaan waxa idin celin doonaa tigid half ay idin celinaynaa laakiin waxaan dadweynaha ka codsanayaa iyo community-ga sida suldaanka iyo mahad iyo inta naga maqan oo dhan waxaan ka codsanayaa inay dhalinyaradaas 16 kaas qof oo aan Muqdisho u wadno in maaragtay la caawiyo sidoo kale muxuu ahaa arrintan hore ayay u bandhigeen kubadda cagta 5 sano ka hor ay codsadeen in Soomaaliya la keeno ciyaartoy la geeyo laakiin waa suurto weys sanadkan
waa isku dayaynaa inaan geyno ilaahayna hanala garab galo waana mahadsantihiin dhammaantiin qofka ardaygii ciyaartooyga ku guulaysta sanadkan muxuu ahaa akhlaaqda iyo ciyaartooyga ugu fiican abaalmarin fiican aan siin doonaa marka sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad u celiyo waxaa halkan fadhiyo macallinka kooxda Kitchener Xasan Heybe oo u taagan horumarta isboortiga Cabdiqaadir oo asna Hamilton oo markasta u taagan tiimka Hamilton macallin u ah marka dhammaantiin waa mahadsantihiin hadda waxaan rabaa Bashiir inaan ku soo dhaweeyo dhaho laba kalmad reer Kitchener السلام عليكم دمان خيارت رمضان كريم مجيء وحالها بشير علىها مجا وحكوا هلا كيتشنر حكوا هلا مركان ومركي I think طبعا هذا مالنا ليبان يوشي محمود نقصو دوين مجال تورونتو so team كيتشنر وساوقتين وقت بدنا قادين so مركان وحاربنا هنا كانوا هنا دلنا ير كانوا كقرب قال تورنمنتيga laakiin waxa ka codsanaynaa tiimka kale inay soo adkeeyaan maxaa yeelay sanad walba ma qaadi karno tournamentiga so marka waxaan u mahad celinaa dhammaan guddiga oo Kitchener oo communityga oo tiimka oo Kitchener ka socda sponsorship siiyay iyo coachka legend Mr. Hassan Heybe oo waqti badan ku soo dhumiyay iyo muumin oo ah kabtanka tiimka soo marka ugu dambeeyna waa mahad celinaa Sheikh Maxamuud iyo Liibaan waa mahadsantiin salaam calaykum isboortiga horta caawa aadan ugu faraxsanahay inay dad badan faa'iidooyinkiisa ka wada hadleen Sheekh Abuukar iyo inta kale oo soo raacday marka hore waxa la dhahay wadaadada ma jecla laakiin Sheekh Abuukar wuxuu noo sheegay in salaada ruuxeeda ee spirit iyo fitness labadaba ay ka samaysan tahay sporti marka waa loo baahan yahay nabigeena sallallahu alayhi wuxuu dhaca calimu awlaadakum as-sibaha rukuub al-khayl wa sibaha dabaashana bara fardafuulkana bara qofkii ilaa warantuur naga mid maaha man tacallama rumhi wa nasiya falaysa minna waxaan maleynayaa sportiga Soomaali ahaan wax badan oo dibadda hadda 20 sano aan joognay wax waa qabanay laakiin wax qabashadayna waxay ku ekaatay hal toddobaad marka toddobaadkan markii caruurtayna loo qabto sanadka inta ka harsan caruurta Toronto ma ka guureen ma dhinteen xagee ka baxeen yaa wax u qabanay Soomaali lay u qabanaysaa Talyaani caruurtiisa u qabtaa Ukrainian kuwada u qabtaan waxa loo baahan yahay maadaama sportiga saas faa'iidadiisa loo sheegay in sanadka dhan loo abaabuli karo waxa jira qolooyin hadda 6 sano 7 sano dambe bilaabay caruurta inay sanadka dhan u sameeyaan laakiin meeshii la rabi wili ayagana tawfiiqdiga ka maqan waxay kari la yihiin inay isugu yimaadaan meel dhaxaad qolo walba waxa moodaa inay ku xiran yihiin meel gaar ah haddaba waxaan soo jeedinaynaa first generation waa gudbeen waa caruurta annaka la nimid dalkan aan ku beernay hadda ayagiyaa caruur dhalay anu markii laga soo qaado 10 hadda ugu noqday Toronto marka caruurtaaseeti yaa u maqan iska qabsashadayna waxaan filaa haddii 500 qofood ka shaqayso sportiga caruurtayna keli Toronto ma baahi tiri karno caruurtayna waxay u baahan yihiin waxaan isku soo koobnay meelo yar yar waxaan jeclaan lahaa sideen aga baxnaa oo caruurtaaseeti next generation wax ugu qaban lahayn
إن شاء الله واقبنا ضد بدن ومتعلمين ضد بدن وحقبن كرة مشكلة كلي نايسة وحواي وحلنا هاي تضباطكي لبضوا الساعة فولنتير ملقاه هلا أما أفر وبدنان intaas badi waa diidanahay sababta uu diidanahay ma naqaano laakiin hadalku waa ku fiicanahay actionkii anaga dhiman sportigana sidiisaba hadal badan ma jecla action uu jecel yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك حدنا وحن سمينا صوص كل جين تاريخ صوص كما شيكين كرنو محمودة كشيكي marka waxaan rabnaa sooska inay qabato kubadda cagta iyo kubadda kooliga kubadda cagta ka bacdina waxaan sameynaynaa kubadda kooliga marka qorituur macnihiisu wuxuu yahay iyo wax la idinku wacay imaanshadana caawi maateen wax la idinka damacsan yahay waxaas dhan gadoomiyaha ka hadlaya hello assalaamu calaykum aniga magacayga waxaa la dhahaa axmed faarax khaliif waxaan ka socdaa Hamilton Ontario waxaan ahay coachka Hamilton Hamilton waxaa soo qaban qaabiyay oo in badan waqti ku dhumiyay Muse Cabdiqaadir ilaahay ajarkiisa siiyo aniga iyo hadda waxaa hawshiisa gali doono ninka geeskiisa fadhiyo la dhaho Maxamuud de waxaan sugaynaa anaga waxaan keenaynaa competition oo caafimaad leh iyo walaaltinimo iyo Soomaalnimo ku dheehan assalaamu calaykum waa in aan taageerno oo ku taageerno isboortiga iyo horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado waxa la yiri hadda ka hor ninba waxa la arkaa la yiri isagoo sankor cunaaya markaas loo yimid waxa la war baashan sankor baa la yiraahdaa lama cunay inta la kariyo caleen lagu daray shaah noqotay shaah ka dhigo wuxuu yiri sidaa sheegaysaan waa arkay yiri sidaan waxay kaga macaan tahay malaha marka waligiin waxa ogaataan Soomaalidu midnimo waxay kaga fiican tahay inaysan jirin marka midnimada hal la ilaaliyo markaas Cabdirasaaq Xuseen Geedi intaan u gudbin waxaan jeclahay inaan runtii shakhsi shaqo badan qabta oo markasta meelaha midnimada Soomaalida lagu hayo isboortiga iyo horumarkeeda intaba ku dadaala inaan magaciisa sheego waa Amiir Bashiir Bahweyn oo markasta ku dadaala Soomaalinimada iyo calanka u xiran oo ah mid daacad ka ah waqtiga qoratuurka intaan u gudbin Cabdirasaaq adan ku wareejinayaa kadibna qoratuurka ayaan sameeynaa insha Allah wabillahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim waxaan ugu doomaray maaha inaan ugu wartumidana waxaan ugu doomaray waxay tahay inaan kaliya idin waa maadsantiin madaxda culamaadiinka dumarka Soomaaliyeed fanaaniinta dhalinyarada ismada iyo dhalinyaradaas waa si goori u jecel intaan maqnaabay yimaadeen magacaas haddii raalli ka yihiin waxaan leeyahay oo wacay haddii raalli ka yihiin mid kale lagu bedelaynaa gala Canada waxaan bal intaan iloobanayga ku hormaraya waxaan noo muujiseen oo nacayb asturteen Soomaalida ka horeysay waxa loo yaqaan dad caajis laakiin hadda waxaad moodaa Soomaali firfircoon oo runtii shaqaysanaysa oo aan wali iloobin meesha ka yimaadeen iyo waxay soo mareen baa tihiin laakiin aan idinka cudurro badan baa jira cudurro iska ilaaliya haddii ilaahay dhalinyaro u badantiin gabdhaha noo jooga bulmarmar u soo ziyaarta haddii ilaahay ayaguna af Ingiriiska ay baraan adduunka dhaqanka Soomaaliyeed bar haddii ilaahay sharaf bay noo tahay intii qolo kale ay guran lahayd inaad ku qaadataan marka taas waa kaftan aray wiilasha dhexdeena waxaan rabaa ururka sooska la yiraahdo waxaan ugu istaagay waxay ahayd ma aha inaan xil ka rabay waan ogahay in ururada Soomaaliyeed oo kale oo sportiga ku hoolan inay jiraan balse waxaan ugu istaagay waxay tahay inaan mideeyo oo ayaamaha yar oo ii haray inaan sportiga Soomaaliyeed mideeyo ayaan maaragtay ururkan madaxa uga noqday waxaan kaloo idin sheegay hadda wax laga xumaado ma jiraan
ummaddu way badatay ilaa 100 kun baan ku joognaa ama ka badan hal urur kama shaqayn karo ninkii halkaa naga tego iftaar la oran jiro oo ah nin Hindiya iyo Pakistan wuxuu yahay baaqan oo ah dadka kaalmeeya Soomaalida especially sporting ayaan anagoo qaaraan ugu tagnay wuxuu nagu yiri aad baan u xishoonahay laba qolo annaga u tagnay wuxuu yiraahday waxba bay hidin Hindida cricketka kaliya waa 70 qolan wax siiyaa buu yiri cricketka kaliya baa wax kale marka annaga waa fiicanahay wali labaanahay oo waliba kuma filin runtii laakiin waxa wanaagsan inaan iska warqabno oo aysan nagu noqon colaad nagu noqon ay nagu noqoto halkaan isaga soo dhawaan lahayn oo maaragtay qof walba shaqada lala qabto waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa adinkoo ramadaana waqti xun lagu jiro cariiri ah waqtigiina wanaagsanaa aad u soo lumiseen oo idinkaga mahadcelinayaa waxaan meesha ugu nimidna waxay tahay oo muhiimadda ugu weyn kow caawa cashada waxaan sugan bal inaan midnimo muujino aa'imadeennii odayaasheennii dumarkaygii fankeennii dhallinyaradaydii siyaasiyiintii wixii markaa nala joogay inaan bal horta midnimada baa ka muhiimsan waxaan isugu nimid ayadana inaanu ballaarino oo qof waloo dhidhaah war markabkaa soo ful siduu sheegay suldaanku sanad kasta waxaan leenahay halkudhegyaan leenahay sanadkaan halkudhega waxaa weeye taageer carruurta taageer carruurtaada waxaan kaloo leenahay taageer ganacsatadaada ganacsatada ayadaa suurtagelisay inaan isku nimaadno waxaa weeye aan wax ka iibsano ayaga iyo qolada professionalka waxaa la yidhahdaa dhakhaatiirtayada iyo dhallinyarada maaragtay ii sheeg accountingka makaaniga waxaasoo dhan qaali kastaa kuga ahaado taageera ayadana waa halkudhegeyga marka qorituurka waxaa jira dad badanoo qorituurka aqoon qorituur waxaa weeyaan waa isku aad waay qori liskuma tuurahay waxaa la rabaa 4 tiim ama 6 tiim markaa cayaaraysa in loo cadaalad qaybiyo oo isku aadkoodii la sameeyo marka ayadaan u joognaa wax yar baa noo dhiman aad iyo aad baa mar labaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم macallimiinta iyo naadiyada waa maasantiin hadda waxaan bilaabaynaa qorituurkii aan bilaabaynaa waxaana loo sheegay guddiga farsamada ee soosko in ay ciyaarahan ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 17 koox 17kaas koox waxaa loo kala saari doonaa 4 group group A group B group C iyo group D hal group ayaa waxaa noqon doona 5 saddexda group oo kalena waxay noqon doonaan min 4 guddiga farsamada waxay kale noo sheegeen in 4 kooxood la kala ilaalin doono oo isku group aysan noqonin sababta markaan weydiinana waxay nagu yiraahdeen 4taas koox waa 4 koox oo waaweyn oo culus ma rabna marka in ay isku jabaan ayaga ama hal meel ay wada maraan ama laba ayaga ka mid ah meel ma wada maraan si ciyaarta ay u xiiso yeelato group 4taas koox xoog leh waxaan gelinaynaa min group marka groupka A waxaa toos u galaya kooxda xidigaha waa group A group B waxaa laga dhigay Orawa waa 4 kooxood oo la kala ilaalinayo hadda la socda group C waxay noqon doonaan Kitchener group D na waxay noqon doonaan Iftin 4taas group aan soo sheegnay 4taas kooxood aan soo sheegno min 4 group hogaamin doono ayaa waxaa looga saaray tartanka inay gaar u min group ay hogaamiyaan sababtoo ah awoodooda ayaa ka weyn gruubaha kale misfaan intaas waxaan rabnaa marka xagga farsamada cilad yaraa jirta markaan bilaawno qorituurka 4taas magac intay ku jiraan haddii ay dhacdo inuu soo baxo Kitchener ama xidigaha
waa ku celinaynaa meelaan dhigaynaa kaas mar labaadaan ku celinaynaa sababtoo ah waxa si qalad ah ayaa loo duubay oo mar hore ku jireen misfahanna marka insha Allah marka waxaan bilaabaynaa qoratuurkii liibaan inta kale adaan kugu soo wareejinaa assalaamu calaykum warqadda haye la baxaya qof kale weli waxaa loo daadihin doonaa saciid baa hawsha loo daadihinahaya waxaan rabaa 4 tiim oo xooga badan inta kale inay beeneeyaan ayagana haddii ilaahay markii tartanka la yimaado waxaa kaloo naloo sheegay in 4 kooxood oo under 16 ah ay tartanka ayakana kaabi doonaan waxaan markaan dhammayno isku aadka ama qoratuurka isku aadka kooxaha waaweyn markaan dhammayno ayakan insha Allah ma arkino 4taas koox arrimahooda aan ka hadli doonaa haddana waxaan ku wareejinayaa in macallin Muuse oo loo daadi doono inta dhan okay kabtanada iyo madaxda kooxyada fadlan ha qortaan qoratuurkii resultskiisa waxa uu noqday group A waxaa ku jiro 5 kooxood oo kala ah xidigaha Western FC Kitchener Junior Wamo FC iyo London FC waa ku celinaa group A xidigaha Western FC Kitchener Junior Wamo FC iyo London FC group B waa 4 kooxood Ottawa Banaadir FC Hamilton FC iyo Galmudug FC B waa ku celinaa Ottawa Banaadir FC Hamilton FC iyo Galmudug FC group C waa Kitchener Senior Qaatumo Ohio iyo New York group C waxa waaye 4 kooxood Kitchener Senior Qaatumo Ohio FC iyo New York FC groupka ugu dambeeya afraad D waa 4 kooxood Iftin Al Hilal FC Gala Canada iyo Washington FC group D again waxa waaye Iftin Al Hilal FC Gala Canada it doesn't matter haddaa ku soo gasho diyaarad iyo haddaa webiga soo goysay iyo Washington FC assalaamu calaykum saasay ku dhammaatay iyo meeshan quruxda badan maama Esther la'aanteedii ma socon lahayn marka waxaan rabnaa inaan u mahad celino oo si official ah qoratuurka inoogu xirto waa Mr. soo dhawow habeen wanaagsan waxaa caawan ku faraxsanahay in asxaabteyda aan u imaado hadal lama soo diyaarsanin marka oo ku faraxsanahay ciyaaraheena caadiga oo Somali Week inaan caawa aan Janice u yeesho inaan kala qayb qalo afurkeedii marka waxaan leeyahay waa wax loo baahan yahay wax community u baahan yahay fanki kaliya oon haysan jirnay laakiin hadda waa ka maqanahay I'm sorry laakiin caawa qayb fiican ka qaatay dadkaygii hore dhan iyo dhalinyaradii cuslaatay iyo intii kaleetay iyo oo qaybteyda aan ku jira anigana marka ciyaartan oo ciyaarahan oo ay soo qaban qaabisay Soosko
oo caawa aan furitaankeedii ka qayb galay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka waxaan ku soo dhaweynaa saaxiibtay qaaliga ah oo aan hal sano meeqsan ay goynta horta 6 bilood kaliyaan ka weyna 6 mise 5 marka saaxiibtay aan ku wareejinaa maamadee aan jecelahay ciyaartii waa la furay waqtow nasiibkiina waa la sameeyey aad iyo aad baan idinku faraxsanahay dhalinyarada garabka aad qabataan annagu waa duqowle generationkii in la soo kiciyaa fiican waa inay gabar dalays la yiraahdaa ciyaarta adduunka ugu haysataa oo dhalataa gabadha ugu horeysa ee Soomaaliyeed ee tartanka orodka ka qayb gasha anaa siiye magacayga waa dalays waa inay imaanaysaa idinkana waxaan idin leeyahay wiilashana Cabdi Bile waa inuu soo baxo waa inay soo baxaan waa in isboortiga gacanta la qabtaa waa in dhalinyarada la soo kiciyaa dhalinyaradu qabiil shaqo kuma leh xasidnimo shaqo kuma leh xin shaqo kuma leh waa xalaal guddiga Sosco oo ka tirsan magaaladan Toronto ciyaarahanina waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo dhowr iyo 10 kooxood oo aad u fara badan balse waxaan dooranay inaan si gaar ah ula hadalno koox ku cusub magaaladan Toronto ahna markii ugu horeysay oo ay ka qayb galaan tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo lagu maamuuso maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 July oo ku beegan maalinta xorriyadda dalka Soomaaliya iyo dalkan aan joogno ee Canada waxa halkan kula kulanay kooxdan aan rabo inaan magacooda weydiiyo magaca ay uga qayb galayaan tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida runtii waxaan u mahad celinayaa radio SNTV waxaan leeyahay SNTV raalhada runtii markaan ku sheegno magaceena waa sida hadda aan la baxnay waa gala Canada maadaama aan generation cusub waddan ku soo biiray waxaan jecelnahay runtii inaan waxyaabo badan aan ka qabsano ama haddii noqon la shaqo xag sporti xag caafimaad wax walbaba laakiin magaca hadda aan u qayb galayna waxa waaye gala Canada waa tahay magacan aad doorateen gala Canada ma mid idinka yimidba mise waa mid jaaliyadii Soomaaliyeed ee walaalihiin ahayd idinka horeysay aad kula kulanteen magaaladan Toronto ay naanaystaasi idin bixiyeen dabcan sida aan nagu maqaalaa dad badan oo runtii waddankan asal nimaanay oo muddo badan joogay oo runtii isku ciidanaanay baa magacan soo hindisay rag naga waaweyn oo dabcan aan oran karo waa dad lagu dayan karo dadkaas ayaa magacan noo bixiyeen waana ku qanacsanahay runtii magaca waana ku qanacsanahay inaan ku arno dhinaca kale hadaa fiirso xagga maaragtay community-ga aad bay ugu farxayeen magacan waxay leeyihiin dhiirigelin baa noo tihiin xagga ubadkeena xagga mustaqbalkeena waxaa la oran karaa xataa in waddanka laga yaabo inaad janji micnaha dhalinyarta kale oo waddankan aad ku dhalatay in ay isbedel horumar u noqotaan laga yaabaa marka anagana waxaan jecelnahay ilmaha waddanka ku dhasheen ama anagaba ama dadkii muddo meeshaan joogay inaan wax badan bedelno xagga yacni dhaqan ahaan diiniyan ama xag maaragtay dal jecelnimo hadday noqoto xag sportis isku xirnaan xagga bulsho Soomaalnimo dhan walbaba xagga markii la fiiriyo ayaan jecelnahay hadii la yiraahdo magaaladan Toronto ama guud ahaan dalkan Canada markaad fiiriso ciyaarta kubadda cagta dadka ciyaara mar walba waxa farsamo ahaan ka wanaagsan sida dadka inta badan ay sheegeen dadka cusub dalkan yimaada maadaama kubadda cagta qaaradda Afrika iyo Yurub ay tahay meelaha sida aadka looga tixgeliyo halkan ay tahay kubadda kolayga marka idinku sanadkan ciyaarahan aad ka qayb galaysaan toddobaadka Soomaalida kooxdiinan gala Canada maxaad u maleynaysaan ifafaalaheeda runtii waxaan rajaynaynaa dhalinyaro badan baan nahay oo xagga banooniga markii la fiiriyo isku xirkeena oo dhalinyaro isku age baan nahay de qof walbaba de wuxuu jecel yahay inuu hadafkiisa uu gaaro inuu meel fiican gaaro xagga natiijada marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan meel fiican tagno dabcan waa taqaana kubadda cad lagama sheekeenayo waa adigu yani inaad badiso ama in aad luus gareyso bay u badan tahay marka mid walba alla kulan runtii diyaar baa u nahay laakiin anaga xaggeena waxaan rajaynaynaa finalka meesha ugu dambaysa insha Allah inaan tagno idinku sidaan maqlay kooxdiinan gala Canada dhalinyaro aad u fara badan baa tiin xirfadan kubadda cagtana runtii ma kala dhacdaan oo dad waxa tiin farsamadoodu ay sareyso marka maadaama tirada koox ahaan markii la fiiriyo aad ka badan tihiin sidee isku soo xusheen inaad koox noqotaan idinku waa jiraan dhalinyaro badan oo xataa oo gala Canada kooxaha kale magaalooyinka dhisan u ciyaarayo laakiin inteenan in yaro isfahansan run ahaantii xag maamul iyo xag ciyaartooyba ama in istaqaan ahaan baa isku abaabulnay walow ay jiraan rag badan oo nacaawiye sida hadda Maxamed oo kale iyo gabar laasheen oo Baarlin la yiraahdo kale run ahaantii waxay xil weyn ay saareen dabcan waddanka aad bay noogu soo dhaweeyeen
xataa waxay noo sheegeen maaragtay in maaragtay waddankan wax ka qabsan karno xagga sports ahaan maadaama kooxdan gala Canada yiraahdo inaan runaantii noqono team isku xiran oo runaantii la oran karo lagu dayan karo xataa dadka naga dambeeya bari kama waddanka soo galo marka runaantii magacaan waa u dhannahay waanu ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah koobkan Somali Week inaan meel fiican gaarno hadii la yiraahdo waa tahay markii aanu ka soo gudubno dhanka ciyaarta kubadda cagta aad ka qayb galaysaan sidaad ka warqabtaan dalka Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel in ay dalka dibadaha soo aadaan qaarkood in runtii ay ku dhinteen badaha iyo saxaraha marka idinku maadaama aad soo gaarteen waqooyiga America gaar ahaan magaalada Toronto fikrad waxaa jirtay dadka gudaha ah ay haystaan oo qalada oo baraha bulshada ama Facebook loo sheegay dalka Canada iyo Mareykankaba kubadda la ciyaaray waxay ka samaysan tahay dahab marka arintaasi maadaama waddanka aad timaadeen nolosha rasmiga aad aragteen dadka Soomaaliyeed idinka fiirsanaya warbaahinta qaranka Soomaaliya Canada markaad soo gasheen rajadii iyo wixii aad markii hore qabteen iyo markaad nolosha saxda aad aragteen maxaad ka oranaysaa aad baa ugu mahadsantahay su'aal fiican waaye markii waddanka la joogo iyo waddanka qurbaha markii la yimaado dabcan dadku laba fikrado kala duwan ayay haystaan aniga shakhsi ahaan markaan fiiriyo fikirkayga hore hadda waa kala duwan yahay laakiin anigu waxaan oran lahaa dadka qurbaha wuxuu ku fiican yahay qof way ariga oo waddankii wax ku soo bartay dhibaatada iyo waddanka taala fahansan ayaan oran karaa laakiin marka inta aan imaano run ahaantii waxaad dareemaysaa yacni dadka waxaa laga yaabaa qof guriga kula degan is arkinba oo shaqo sii aadayo oo adigaas aad guriga marka ka timaadid qof kale sii baxayo xagga wax qabadka hadii la yiraahdana dee xagga sports oo kale kulay waa oran karnaa waqti waa u heli karnaa run ahaantii inkastoo inta badan aan shaqaysano camalaha xagga shaqadoo kale maxaan ku raahdaa xagga qofkii wax baranayo dhalinyaro wax barto ugu jirtaa waa iskala qaybin xagga waxbarashada xagga shaqada xagga sportiga hadda anaga intaba waa isku wadnaa iskuulna waan aadnaa xagga iskuulka waan aadnaa sportiga sidoo kale xagga shaqada laftigeeda habeenkii waa shaqaynaa marka intaba waa u dhaxaynaa dadka badan laba shift dhahan laakiin anaga saddex shift anaba marka waa tahay su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay fursadan maxaad uga faa'iideysanaysaa dhalinyarada fara badan ee raba inay safarada qatarta soo galaan ama bad ha noqoto ama berri ha noqoto halkan maxaad fariin uga gudbinaysaa dhalinyarada Soomaaliya joogta ama qaaradda Afrika meelo badan ka jooga ama Carabaha safarada qatarta ah oo naftooda ay ku soo haligi karaan ay rabaan in ay soo gaaraan dhulalkan fogfog adigu maxaad leedahay والله runtii qofka markuu waddanka joogo si walba waxa uu sheegtay ma fahma ilaa uu ka arkay asaga dhibkan marka aniga waxaan oran lahaa nin walba uu runtii markii la fiiriyo waddankiisa wax u dhaamala inuu joogo waddanka waa hadda maanta waxyaabo badan ay jiro opportunities badan oo qofku maanta wax ka qabsan karo sidii hore ma aan xilliga dagaalada sokeeyo kale maanta waddanka ma aan dawlad xoogaa la oran karo dawlad baa jirto oo dhalinyartu runtii way shaqaysan karaan waxbay ka baran karaan marka runtii aniga waxaan oran lahaa haddii dhegeysanayaan dhalinyarta Soomaaliyeed inaysan dibadaha ama sida badoo kale inaysan aadin runtii waxaan oran lahaa waddankiina iska joog iska barta qofka markii wax loo sheegana dee kuma dhegeysanaya unless qofkii soo baxo oo dhibka arka maahane laakiin aniga talahaan waxaan oran lahaa inay waddankooda iska joogana fiican hal su'aal oo jeclahay oo ugu dambayso oo adigu aad ka faa'iideysanayso fursadan qaaliga ah dadkii aad ka soo tagteen amaba runtii eheladaada qaraabadaada asxaabtaada oo ka daawanaysa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed telefishinka qaranka Soomaaliyeed halkan haddaad salaamayso haddaad fariin gaar aad u fidinayso runtii waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteeda runtii aniga qaasatan waxaa ka imaaday warta nabadda X Warrigle waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteeda dabcan radio SNTV wariyaal badan ka aqaana sida Al Adala dhalinyaro badan ka aqaana waa salaamayaa runtii waxaan oran lahaa Ramadaan Kariim meel walba ay joogaan warbaahinta SNTV waxaa jirta yar walaalkaya oo aan xididna aan qaraabanaano hadda ku dhintay badaha u dhaxeeya Liibiya iyo Saxaraha Suudaan marka waxa jeclaan lahaa inaan tacsiyo u diro magaciisa waxa la yiraahdaa Sayid Cali Axmed Cabdulle oo jooga ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan inta dhimatay Ilaahay sabar naga siiyo dhalinyarada ay sheeg Soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmi lahaa inay ka faa'iideystaan waddankooda faa'iidada taala waayo qurbaha waxa dareemaysaa in ajnabi tahay mar walba waxa dareemaysaa inaad tahay nin muwaadin xitaa hadaa santiisi qaadato inaad tahay muwaadin labaad marka waxay joogaan meel ay yihiin muwaadinka koowaad farxad ku haystaan luqadooda lagu hadlaayo insha Allah fursadahan meelahan jira sida waxbarashada iyo shaqada maalin imaan doontaa sidoo kale waxaan rabaa inaan kula dardaarmo siyaasiyiinta iyo culimada diinka inay ka fakiraan mustaqbalka soo socda ilmaha waayo wadamada hormar waxay ka fakiraan mar walba dhaxan ilmaha awowayaasha u nahay ilmaha yaani nabadali doona mustaqbalka wadankeena ina iyagana siyaasiyiinta markay khudbeynayaan ay ku khudbeeyaan ilmaha aan nahay
awoowayaashuna sida ayaga isticmaalaan waxay dhahaan our grandchildren grand doctors wax sax ma la isticmaalaan intaas ugu faa'iideysan intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii codka jaaliyadda Canada oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay xaflad afur ah oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga Sosco ee soo qabanqaabiya tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo sanad walba marka la gaaro xilliga xagaaga gaar ahaan bisha June 26keeda ilaa iyo July 1keeda ku qabta magaalada Toronto ciyaarahaasi oo lagu maamusayo maalmaha xorriyadda ee Soomaaliya iyo dalka Canada inta barnaamijkeena codka jaaliyadda kan xiga aan ku kulmi doono anigu Maxudiin Jaamac nabadgelyo